Halo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago sida loogu soo daraa footnote TS-kaaga ama RCH-kaaga ama summary page-kaaga ama waxa weeye student RCH-kaaga all of them markaa rabtid inaad footnote ku dartid sida loogu soo daraa. Footnote waa meesha lagu caddeeyo waxa weeye details-ka ama information-ka summary-ga ah page-kaas aad u dan leedahay ama reference-ga ama waxa weeye meesha aad tusaale ahaan halkan oo kale soo dhigan kartaa aad ku sharixi kartaa halkan meesha ugu dambeysa aad ku sharixi kartaa waxaasoo dhan iyo wax kaloo ka badan baa loo isticmaalaa footnote. Markaa rabtid inaad footnote ku dartid waxaad tegeysaa meesha la yiraahdo waxa weeye reference markaad tagtid halkan bay kaaga muuqanaysaa insert footnote kaasaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid marka intaada ku dhufan ka hor waxaad tegeysaa waxa la yiraahdo meesha rabtid in kaaga soo baxo for example waxaan rabaa in halkan oo kale iga soo baxo meeshan aad ujeedaa maahan iga soo baxo ama waxaan rabaa inuu meeshan hoose iga soo baxo markaas waxaan tegayaa waxa weeye reference kadib waxaan leeyahay insert footnote markaan dhaho halkaas iga soo baxa kadib waxaan ku qorayaa faahfaahinta dheeriga aan u baahanahay oo kale aan ku qorayaa for example oo kale faahfaahintaas oo kale aan ku qorayaa iyo wixii aan u baahanahay oo kale oo la xiriiray maxay ahayd induction-ka la i siiyey ama waxa weeye maxay ahayd wax laga rabo arday ahaan markaan ku qoro dan waxaan leeyahay saas for example oo kale saas baan dhahayaa haddii aad u baahan tahay inaad wax ka beddeshay fartoo kale saas xaggaas aad tegeysaa termskii wixii aad u baahan tahay farta magacyadeedii iyo nambarkeedii sizekeedii iyo haddaad rabtid inaad color marisay all of them saas kale aad ugu soo daraysaa haddii markaa si khalad ah aad ugu talagelin meeshan oo kale ay kaa soo dhex gasho ama aad si mistake aad ugu dirto oo kale waxaad dhihi kartaa control z ama waxaad dhihi kartaa waxa la yiraahdaa undo waxaan u maleynayaa clipkan gaaban inuu aad iyo aad idin anfacay aad baan idin salaamayaa asxaabay